kalfadhigii saaka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominaya gudoominka xogeenka labaad ee golahaasi Cali Yuusuf Axmed ayaa mudanayaashii kalfadhigaasi ka soo qayb galay waxa loo qaybiyay 9 xeer oo kamid ah kalfadhiga ajandaha golahaasi waxaana mudanayaashii kalfadhigaasi ka soo xaadiray ay mid uga doodeen xeerarkaasi loo qaybiyay oo intooda badan diiradda saaray xeerarka ay kamid ka yihiin xeerka saxaafadda xeerka baananka xeerka doorashooyinka guud ee dalka iyo sidoo kale xeerar kale waxaana intii dooda ay xildhibaanadaasi ka yeelanayeen xeerarkaasi loo qaybiyay mararka qaarkood ka baxaysay habsamay socodkiisa dhageysiga dooda kalfadhigan saaka ah ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee mudanayaashu ay kaga doodayeen xeerarkaasi waxa mudanayaashii halkaasi xeerka doodooda ka dhiibtay kamid ahaa saxafigu hadduu for example magac dil geysto defamation of character waa in lala tiigsadaa kiis madani ah ee aan la geyn ama lagu soo eeday sida xeerku qorayo kiis criminal oo ciqaab dambiyeed leh sida dhacda xeerkan iyadoo uu yaallo laguma dhaqmin mar walba saxafiyiinta waxaa lala tiigsadaa xeer criminal ah waxaana loogu xukumaa xeer ciqaab dheer oo 3 sanadood iyo wax ka badan gobolada degmooyinka daayadda waxay tababar u qorteen iyo 5 ugu qorteen inuu muujiyo waa xajin waa xeersan oo gurub sameeyay halka halas oo inuu xeersan inuu wax qaado waxaan ka qaaday hay'adaha haddaba soo waajibay soo qorasiyo doorashooyin waxaan filayay inuu maalintii la furay uu ka hadlo arrinka oo xeerarka ka soo jeediyo saxaafadeed ama la baroon waxaa ka dhigaya xeerka waxaana leeyahay xaaladda dalka xoogga bulshadiisa waa in laga dhigaa la baroon goluhuna si degdeg ah uga hadlaya baa soo saara kalabaad waxaan ka dhigayaa xeerka maalinta qashinka waxaan maraynayaa waa la socotaa magaalada hargeysa iyo joogno koona walba qashin baa yaala wadankii meel walba duqsigaa galule mudheelada waxaan filayaa inaad intiina badan tagtaan duqsigii waaweynaa raashinka waxay ahayd wax kasta ku dhacaya xaaladdu caafimaadku aad iyo aad u khatar ugu jira waxaad moodaa inaan gola degaan ka jirin hargeysa waxaan ku raaxsanaysaa anaga in axmed ay barbar fadhiyaan qodobka koobaad ee xisaabinta ahaa in laga saaro meesha waayo wuxuu fadhiyaa ma ogsan jiro taas waa doodan adag ee maanta ay yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxay ku soo hagaagaysaa iyadoo dhawaan u ahayd markii si rasmi ah iridaha loogu furay kalfadhiga golahaasi kadib markii ay mudanayaashu soo dhameysteen muddo 3 bilood oo ay fasax ku maqnaayeen waxaana gunaanadkii kalfadhigaasi lagu wargeliyay mudanayaasha in kalfadhigu xiran yahay isla markaana maalinta berrito halka ka sii socon doono Cabdirasaaq Axmed Cabdi Koronto Kalson TV